kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janaalkeena Fandowr Media. Alaaba halkan waxaad kala socotaan barnaamijyo xiiso leh oo idiin soo gudbin had iyo jeer. Fadlan walaal macaan markii kuulisa deeta janaalkeena soo booqato, subscribe-ta ka ilaawin gambaleelkana furo si aad ula socoto barnaamijyadeena iyo waxyaalaha kale ee soo gelina janaalka. Maanta barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaynaa fanaanka caanka ah ee Dayaxdal Nuurshe ayaa la filayaa maalmaha soo socda ama isbuucyada soo socda in uu kasoo muuqdo barnaamijka laga daba dhacay ee Qaraaxa. Barnaamijkan Qaraaxa ee ka baxa Astaan TV ayaa la filayaa maalmaha u dambeysa soonka inuu kasoo muuqdo fanaanka Dayaxdal Nuurshe. Fanaankan ayaa taageero weyn ku leh bulshada dhexdeeda, waxaana la filayaa barnaamijka inuu gabagabo u noqdo si loo daawado ama bulshada ay xiiseyso u daawato. Barnaamijkan ayaa maalmihii ugu dambeysay hadalhayn weyn ka dhaliyay baraha bulshada, waxa uuna soo jiiday kumanaan taageerayaal u noqday Astaan TV iyo barnaamijkan Qaraaxa. Barnaamijkan ayaa xiisihiisa wata, waxaana lagu soo casuumay fanaaniin badan oo kala duwan. Waxaa la filayaa isbuucyada soo socda inuu kasoo muuqdo fanaanka weyn ee Dayaxdal Nuurshe. Dayaxdal Nuurshe ayaa wacdaro ka dhigay barnaamijkan, wuxuuna qaab cajiib ah kusoo bandhigay oo aan laga filanayn marnaba. Barnaamijkan su'aalo badan oo la weydiiyana ka jawaabay. Barnaamijkan ayaa siro badan daha ka qaadi doona, waxaana la filayaa maalmaha soo socda inuu kasoo muuqan doono shaashada Astaan TV. Barnaamijkan ayaa fanaaniin badan oo caan ah wacdaro ka dhigeen sida Saadi Saraf oo laga yaabsaday. Barnaamijkan ayaana wuxuu noqday barnaamijyada ama ugu hadalhaynta badan baraha bulshada la dhex marayo, waxaana qadka kala baxay musalsalo badan oo laga soo deji jiray TV-yaal caan ah lana xiiseyn jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. Bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa uu noqday barnaamijka ugu daawashada badan marka la fiiriyo barnaamijyada ka baxa TV-yada caalamiga ah ee Soomaalida. Sidoo kale waxaa la filayaa maalmaha soo socda inay kasoo muuqdaan fanaaniin caan ah oo magaalada Muqdisho ku nool. Fanaaniintaas la filayo ama lagu hanka weyn yahay inay kasoo muuqdaan waxaa ka mid ah Qadar Keyo iyo sidoo kale fanaaniin kale oo badan. Halkaad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandowr Media oo alaab u taagan in ka qabtira barnaamijyada iyo wararka iyo warbixinada qisooyinka jaceylka iyo alaab wixii ka cusub social media ama baraha bulshada ay Soomaalidu ku wada xiriirto iyo wixii kale ee aan u aragnay inay faa'iideyn kugu jirto ama aad xiiseysaan. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida qiimaha badan ee aad noola socotaan. Fadlan walaal macaan markii kuulisa deeta janaalkeena soo booqato, subscribe-ta ka ilaawin waa lacag la'aan, gambaleelkana furo si aad ula socoto barnaamijyadeena iyo waxyaalaha aan soo gelino janaalkan. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina.